gabar haddaad ku riyoodo ama gabar oo carabkeeda go'an yahay haddii lagu riyoodo wax fiican ma masuxun waay waxaa laga yaabaa inaa naxsanta oo istiraad alla taasi waa carab dheer tahay maya ma ahan gabadha carabka go'an ee lagu riyoodaa ama iyada ku riyootaa macnaheedu waxaa weeyaan ay tilmaamaysaa gabadhaasi dhoorsanaanteeda gabadha carabka go'an haddii lagu riyoodo dhoorsanaanteeda uma hadal badna shibana waay way is ilaalisaan way dhoorsoon tahay beenta iyo xantay iska ilaalisaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halka aad iga daawanayso waa channelka Macalin Muuse official channel, aniguna waa Macalin Muuse. daawashadaadu haddii ay tahay markii kuugu horreysay fadlan waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa subscribe-ta, like-ta, share-ta iyo weliba commentiga aad noogu soo qortaa hadal wanaagsan oo dhiirigelin inoo ah horay inoo socodsiinaya insha Allah. waxaan idin rajaynayaa inaa caafimaad qabtaan sida aniga oo caafimaad qaba aan idin soo hor fadhiistay mar kale maalmaan idinka maqnaa waa isku soo xiisnaa oo maleynaana waayahay. maanta weli waxaa inoo socday barnaamij maalmo ka hor qofkii ila socda dadka inta badan ma jecla barnaamijyada caadiga marka aan qabanayo. dadku waxay aad u jecel yihiin in su'aalo aan uga jawaabo waxyaabo inaan uga jawaabiyo dadku ay jecel yihiin aad ayay muuqaalada marka aan su'aalaha ka jawaabayo ee u kala kacaan waa ogahay waa la socdaa. laakiin marka aan sheekeynayo dadka ma jecla, marka aan hadallo munaasab ah aan jeedinayo dadka ma jecla. war barnaamijyadeeda aniga ama ha noqdaan su'aal aan kaaga jawaabayo ama ha noqoto barnaamij aniga aan la imid oo hadal ah, mar walba adiga faa'iido kuu yahay, marnaba ma khasaaraysid ogow. ayaan dhawid waxaan ka soo hadlay waxyaabaha dadka aad ay uga baqbaqaan oo ay caabsadaan markii ay ku riyoodaan. waxaan dhahnay dadku markii ay ku riyoodaan jirkooda oo go'ayo oo kala daadanayo, qof indhala ah wuxuu ku riyo qof indha leh wuxuu ku riyoonaya isagoo indhala, qof af laha isagoo hadli karin ku riyoonayo, qof socon kara isagoo socon karin ku riyoonayo. waxaasoo dhan cabsi waay, maxaa keeni karo? ayaan dhawid qaar badan aan ka soo hadlay haddaad ila socoteen. haddaad laakiin dee ood adinku aad rabtiin in wixii la idiin mataqaanay su'aalihiina in la kaga jawaabo haddii aad rabtiin ma faa'iidaysaan. markaas mar walba waxay noqonaysaa su'aal leh inaad mar walba i weydiisaan. maanta waa dhamaystirka barnaamijkii xubnaha jirka. adiga oo fayow seexatay, adiga oo ciladeysan aad ku riyootay. waxaan ka bilaabaynaa maanta waan kow aan dhahaynaa adigoo indhalaha seexatay, indhahaaga fiy waay waa fiican yihiin, waa seexatay waxaad riyo ku aragtay labadaadii indhoodoo fuqay booskoodiiba aan oo limbo, labadii indhoodaa ku fuqaybo. macnaheedu maxaa waaye? macnaheedu waxaa waaye qof aad u jeceshahay oo indhahaagu ay ku dogsadaan ayaa musiibo ku dhacaysaa. nacuudu billaahi min labadaadii indhood haddii ay soo fuqaan booskooda ay ka soo fuqaan musiibo waaye. arrintaas iyadaa arrin lama hadiya ma ahan. laakiin indha la'aan indhihii meesha way ku yaallaan laakiin waxba ma aragtid, indhoolaa tahay ama waa lagu hogaaminayaa ama adiga yaaba waxba arkoonin waxban hortaada wax yaalan ma arkaysid. maxaa waaye? waa dalaalun fi ddiin, inaad qof lunsan aad tahay, waa lunsan tahay, waddo qaldan aad ku taagan tahay, waddo qaldan aad ku taagan tahay. qofka isagoo indhaleh seexda ee ku riyooda isaga oo indhool ah haddii uu faqiir ahaa waxay leeyihiin qaarkood taajiruu noqonayaa. waxaa kaloo la yidhaahdaa qofka isagoo indhala ku riyooda qur'aanu inta bartay uu qur'aankii ayuu hilmaamay. ilaahay waatii uu dhahayay qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika atadka aayaatunaa fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa. indhala-aanta wax fiican maahan. haddaad adigoo indhala ku riyooto isku noqo walaal, isku noqo, dib isugu noqo walaal, khayr allah ku siiye. haddii adiga indhaad leedahay laakiin qof baa ku indho tiray, waxaad ku riyootay iyadoo qof uu ku indho tiray, indhuhu biyo kaaga shubay ama bisbaas uu indhaha kaaga shubay, markaas wax dhan arki weyseeyaba. qofkaas waa qofkii ku baadiyaan lahaa, qofkaas waaye qofkii adiga ku baadiyaan lahaa ee ku dhumin lahaa, qofkaas waaye. waayahay haddii ay biyaha annaga naga yimaado indhahayna ka yimaado waa biyo cad, haddii ay biyuhu ay madow ay noqdaan ka waran. ilin madow haddii ay kaa soo daadato ka waran. ilin madow haddii ay kaa soo daadato akhi ukhti fillaah, macnaheedu waxa weeyaan oo aad markaasina waxba aad arki weysid, niyahow xishoodkaa kugu yar. gabar yahay xishoodkaa kugu yar,
حشو اسكو حشو أو الله هاجا كياب أو إلهي كحشو إن ده هاجا أو بيمدو كإيمانا يوا حشود لآن عيب مبكلة تقاليد بو محا عيب محان عيبهن مبكلة تقاليد بو نعوذ بالله من ذلك إلهي كما قالينا إلهي أيان كما قالينا علاد والبو أو كنت ماذا وجهك سيدا وجهك أو فول حماذا أو خروح بدنا أهيد وجهك أو فول حماذا محان كو إله ذاي وجهك أو إيكا صبحان دلدلاع أو دلدلاع وجهك وحاسو دون وحشود جري حشودكaaga inuu yar yahay ayaa cadeynaysa hadii laakiin cagsigeeda wajigaaga oo qurux badan aad ku riyooto oo aad aragto macnaheedu waxa waaye inaad tahay qof xishood badan inaad tahay waa macnaheeda hadii wajigaaga uu isbedelo kalarkiisa uu noqdo jaalle waa murugaysan tahay markaas murug waa taas waa murugo waxa tahay qof murugaysan oo waxa u baahan tahay qof murugada kula qaybsada oo baahan tahay haddii wajigaaga sida ma arkin oo dadka cadaanka ah oo wajigooda inta nabradaha ku helay ama gudgududka dhibcaha gudgududka inta ku helay haddaad ku aragto wajigaaga saas ahne beentaada badan qof been badan aad tahay iska ilaali walaal khayr Allah ku siiye beenta badan wax fiican maahan iska ilaali carabka ku soo haray carabka sidiisaba waxa lagu macneeyaa inuu yahay tarjumaan al-insaan qofka muslimka ah insaanka ah waxa mar walba u hadlo ee waxa u turjumo waa lisaanka ama carabka marka hadii uu dilaaco aad ku riyooto carabkaaga oo dilaacay oo aad hadli laadahay carabkiya uu ku jeexan yahay mana hadli kartid maxaa waaye markaas waxay noqonaysaa waxaad ku hadlaysaa hadalkii aad ku halaagsami lahayd waxaad ku hadlaysaa hadal sabab u noqonayo halaagaaga inaad halaagsanto dhibaatana way ka soo gaaraysaa hadalkaas isaga ah laakiin haddii carabkaaga darafkiisa afkiisa hore intaasoo go'day la gooyay ama go'day oo ka go'an haddii aad ku riyooto macnaheedu maxaa waaye dood ma taqaanid ma hadli kartid qofkii ku yimaado ee raba inuu kula doodo iskama celin kartid waa dood mar walba waa laga adkaanaya dood walba oo aad sameeyso iyo murun walba waa laga guuleysanaya waa laga adkaanaya gabar hadaad ku riyooto ama gabar oo carabkeeda go'an yahay haddii lagu riyoodo wax fiican ma msaxuun waay waxa laga yaabaa inaan naxsanta oo istiraad Allah taasi waa carab dheertahay maya ma ahan gabadha carabka go'an ee lagu riyooda ama iyada ku riyoota macnaheedu waxa weeyaan ay tilmaamaysaa gabadhaasi dhoorsanaanteeda gabadha carabka go'an hadii lagu riyoodo dhoorsanaanteeda ma hadal badna shibana waay way is ilaalisaa way dhoorsoon tahay beenta iyo xanta iska ilaalisaa maan macnaheedu carabkay ka go'an tahay watani waa carab sakiin way ma ahan macnaheedu ma ahan maya gabar carab go'an macnaheedu waxa waaye gabadhaas inay dhoorsoon tahay cafiifa ay tahay iyo inay mataqaanaa waliba ay asturan tahay oo xijaaban tahay waayahay haddii qofka uu ku riyoodo ka waran nin haddii uu yahay ama gabar haddii ay tahay gabar carabka kaa goynayso gabar oo carabka kaa goynaysaa ku riyootay macnaheedu wuxuu noqonayaa gabadhaas iyada inaad u baarinimo sameynayso hadal jilcan oo baarinimo ay ku jirtaa kula hadlaysaa carabkaaga goynaysa ogow haddii aad ku riyoolid maanta waa nixi lahayd Allah carabkaygii goysatan waxa waay balaayay soo wadaa maxay soo wadaa aad dhihi lahayd laakiin waxaan kuu sheegayaa inay tahay gabar carabkaaga goynaysa haddii aad ku riyooto inaad hadal macaan aad kula hadlayso oo aad u yara nimrinayso u yara jilcinayso hadalka aad u yara jilcinayso carabkaaga haddii uu ku dhago kalxantaada qaybta kor haddii uu carabkaaga uu iskula dhago labadooda iskula dhigaan macnaheedu waxaa waaye deen lagugu leeyahay diidan tahay amaano lagu dhiibtayaad inkirsan tahay oo waxaad taagan tahay wax aan kuu hayo mana aniga wax agteeda wax kuu yaala haba yaraatee ma jirto waa goorma waa marka aad ku riyooto carabkaaga oo ku dhigan kalxantaada qaybta kore ku dhigan labadooda isku dhigan markaa ku riyooto deenaad diidan tahay ama amaanaad diidan tahay oo aad qof aad u heysid waa macnaheeda أما قفك هدي إسقى أو محله أو كريو ذكوان أذو هذلا يو عافمات قباس يحتى وحد كريو تي أذيقو أنا هذلي نمو أخرس معناه هذا محاوى معناه هذا محاوى أخرس كا وفساد الدين وقول البهتان دين تاذو ويها الله يسنتها قفيه الله كسوه هنونيو إلهي كسوه هنونيو وحاكلو علدك لو جرتا وحي تهي بين أبوك هاقا بدن دقتك بين أبورتها بين أبوك هاقا بدن قفك شبناها إسقى هذلي نكريو هذلي كريمبو معناه هذا ساس واye ugu dambeyn
waxyaabihii afkaan weli ku jirnaa ay ku saabsanaaye bishimaha iyaga waxaa waaye haddii labadaada bishimood oo go-an lagaa gooyey haddii aad ku riyooto waxaa waaye waa dur ama waa lagu durooya ama dadkaad durtaa adiga qofka wuxuusan ahayn aad ku durtaa ceebaha dadkaad ceebaysaa ceebahoodaad sheegtaa haddii aad aragto furuurtaada kore oo go-an haddii aad aragto macnaheedu maxaa waaye qofkii kuu kaalmeyn jiray qof adig kuu kaalmeyn jiraa dhimanaayo qof adig ku caawin jiray mar walbo aad garabkiisa ku taagneed aad cuskaneed aad dhimanayo waa macnaheedu furuur kore haddii ay kaa go'do ugu dambeyn weli waxaan ku jirnaa afkeen waxaa kuu soo haray dalqada macnaheedu maxaa waaye dalqada maxaa waaye qofkii dalqa isku arkaa dalqa dher qofkii isku arkaa hadal uu is amaanayo isagaa is amaanayo hadal amaan uu ku hadlayo oo isaga naftiisa uu ku amaanayo uu ku hadlayaa dadkuna ay ku inkirayaan nin isfaanshawaari isnuugtay uu noqonayaa ma fahanteen wuxuuna sabab u noqonayaa hadalkaasi ammaantaasuuna cadab ku muteysanaya qofka iyo ciqaab uu ku muteysanaya haddii laakiin dalqada uu ku arko qof kale aan isaga ahayn gheyrkiisa haddii uu ku arko qofkaasi wuxuu ka maqlayaa oo uu ka dhageysanayaa hadal aan cajabin doonin oo uusan ka heli doonin hadal xun oo aan cajabin gelin doonin ayuu ka helayaa oo uu ka maqlayaa oo uu ka dhageysanayaa xaggiisa dalqada iyadana taas waay waxaan rajaynayaa inaad wada fahanteen dad badan waxaa laga yaabaa inaanay waxyaabaha qaarkood ay u malayaan xumaato sida hadda gabadhii carabkeeda goonaa oo kale dadka qaarkood maxay isdhihi lahaayeen waana wax fiican waxyaaba waxaa jiro lagu riyoodo oo waxyaaba fiicanna jiro insha allahu tacaala marka baartii kalen waa samayn doonaa waa soo qaadan doonaa dadka intooda badan waxyaabaha ay badanaa ay ka naxnaxaan markii ay ku riyoodaan waan ka soo hadlaynaa insha allahu tacaala laakiin maanta muuqaalkeena intaanan kusoo koobayna haddii ilaah yidhaahdo inta muuqaalkan muuqaalka xiga aynu ku kulmayno nabadi asalaamu calaykum